dagaalka xayawaanada duurjoogta ah ayaa aalaaba ku qotoma ugaarsada iyo la ugaarsada. caadiyan ugaarsadaha ayaa ku sifaysan awood, halka la ugaarsadaha uu ku sifaysan yahay tabar yari, balse hubka ugu muhiimsan ee dagaalka ayaa ah geesinimo. maanta waxaan kula wadaagi doonaa 5 dagaal oo si qarsoodi ah looga soo duubay xayawaanada duurjoogta ah. fadlan ka hor muuqaalka like, subscribe iyo aragtidaada hanaga iloobi. dagaalka ugu horeeya ayaa u dhaxeeya shimbir iyo gorgor. sideedii muuqata, shimbir iskaga duulaya jawi degan ayaa waxaa si kedis ah ku soo weeraray gorgor shaqataga. ugu dambeyn, gorgorka ayaa ku guuleystay inuu shimbirkaasi ka adkaado. dagaalka labaad ayaa u dhaxeeya mas iyo dabagaale. ma sheegi karo sababta dabagaaluhu uusan uga baqin maska. mindhaa sunta maska ayaan karin, balse waxaan shaki ku jirin in sirta meesha ku jirta ay tahay geesinimo. dagaalka saddexaad ayaa u dhaxeeya mas weyn iyo shimbir yar. maska ayaa u muuqda inuu galay god yar oo ay geed ku leedahay shimbirta, isagoo markaasi damacsan inuu ka cuno ukuma, balse shimbirta ayaa ku adkaysanaysa in ay ka soo saarto godka si uusan ukumaha uga cunin, inkastoo uu maskani awood u sheeganayo shimbirta miskiinta ah. dagaalka afaraad waa loogisi iyo masalugaleeda loo yaqaano komodo. masalugaleedan ayaa ka xajmi weyn dhammaan noocyada kale. hubkeeda ugu weyn ayaana ah sunta ay ku wadato afka. sideedu muuqata, ugu dambeyn waxay ku guuleysteen in ay dishaan ugaarkooda. dagaalka ugu dambeeyay waxa uu u dhaxeeya libaax iyo haramcad. dagaalkan kuma qotoma ugaarsi oo keliya, sidoo kale waxa uu ku qotomaa xifaaltan xuduudeed. xajmi ahaan iyo awood ahaan waxay u muuqataa in uu ku awood weyn yahay libaaxa, balse haramcadka ayaa caan ku ah geesinimo iyo dhiiranaan.